Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaw janalkeena Barasha Baar oo aad ka heli doonto macluumaad badan oo la xiriira cilmiga shaybaarka. Daawadayaal dhegeystayaal casharka amaanteeda kugu talagalna wuxuu noqonayaa casharka la yiraahdo glucose. Haddii aynu ku bilowno macnaha glucose maxaa la yiraahdaa? Glucose means sweet oo ah macaan, waa nooc ka mid ah sonkorta ee jirkaagu samaysato taasoo kana timaado cuntada aad cunto. Sidoo kale glucose levelkeeda ama normal rangegeeda haddii aanu fiirino sida caadiga ah dadkeena aan wada naqaano 75 ilaa 120 miligram per deciliter ayaa lagu cabiraa glucose markii la cabirayo, laakiin waxaa jirta wax kale oo la yiraahdo fasting state iyo feeding state, taasoo kale ah 100 miligram per deciliter fasting state at least 8 hours waa inuu noqdaa. 100 miligram waa inay noqotaa markii laga cabiro xilliga aad gaajeysantahay fasting state-ka aad ku jirto kadib 8 saacadood, ama markay kale waa inay 140 miligram noqotaa xilliga aad feeding state-ka tahay ee aad cuntada cuntay after 2 hours. 2 saacadood kadib markaad cunto haddii laga cabiro waa inay 100 miligram 140 miligram noqotaa glucose-taadu. Sidoo kale blood glucose levelka and diabetes-ka haddii aan fiirino sida caadiga ah sida caadiyan sokortu dhiigaaga caadiyan mar walba oo aad cunto sare ay u kacdaa, kadibna markasta oo aad saacado joogto hoos ayay u degtaa oo maada la yiraahdo insulin ayaa hoos u dhigto oo glucose-taas hoos u dhigto, taasoo insulin-taasoo laga helo jirkaaga. Okay, waxaa jira wax la yiraahdo types of diabetes ama types of glucose, taasoo ah type 1 diabetes, type 2 diabetes. So labada type ee ugu daran aan fiirin doono maanta waxaa kow ka ah type 1 diabetes. Sida caadiyanka ah jirkaagu ma awoodo markii aad qabto type 1 diabetes waaye markii aad qabto type 1 diabetes jirkaagu ma awoodo inuu soo saaro maada la yiraahdo insulin taasoo ku filan. Difaac jireedkaaguna isaga ayaa isweeraraya kaasoo burburinaya pancreaskii insulinta sameyn lahaa, kaasoo insulinti markii horeba asiga sameyn lahaa. So type 1 diabetes jirka ayaa waxa isku sameynaya waxa la yiraahdo autoimmune disease destroy ay isku sameynaya, self destroying cells ayaa dhacaya waxa la yiraahdo, kadibna waxaa insulintii pancreaskii laga soo saari lahaa ee la cunayaa la burburinayaa. So qofkaas markaas insulin inuu soo saaro ayaa ku yaraanayso, waxaana aakhirka ay noqonaysaa mar hadduu insulin soo saarmi waayo waxaa la yiraahdo waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo hyperglycemia. So type 1 diabetes self destroy immune system-kaaga isaga ayaa isku sameynaya. Type 2 diabetes waxaa la yiraahdo waxa weeyaan unugyada jirkaaga jawaab celin ma siin karaan insulinta markii la soo saarayo cellskaaga. Markii type 2 lagu jiro cellskaaga uma jawaab celin karaan insulinta, sababtoo ah iyada wax jawaab ah ma siin karaan oo micnaha awoodba uma lahan inay jawaab celiyaan. Sidaa darteed pancreaskii wuxuu u baahan yahay inuu sameysto insulin badan si uu uga dhaqaajiyo ama in movement ugu sameeyo glucose oo cellska u geeyo, because glucose in la qaado blood stream-ka la raaciyo ayaa la rabaa si jirka dhammaantiisa ay u gaarto qofkana uu energy u helo. So sidaa darteed waxaa dhacayo waxa la yiraahdo in movement aan lagu sameynin glucose oo other cellska aan la gaarsiinin. Sidaa darteed haddana pancreaskii isagoo markaas hadduu saas sameyn waayo waa mid waxyeeleysan ama waxyeelo ayaa horey usoo gaadhay, mana sameysan karo insulin ku filan. Si uu u sameysto insulin ku filan waa inuu helaa movement glucose soo gaadho oo cellski dhammaantiisa la geeyo insulintii. Sidaa darteed marka haddii halkaa la geey waayo insulintii cellski loogu talagalay waxay noqonaysaa in levelkii lasoo saarayay ee maxaa la dhahaa glucose-tana ay yaraato, kadibna qofka ay ku dhacdo hypoglycemia. So marka type 2 diabetes waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan ka ogaan karno in insulinta naftirkeeda aysan wax jawaab ah siinaynin cellskii ama pancreaskii loogu talagalay in lagu sameeyo dhexdiisa insulinta, sababtoo ah markii oo qofkan ku yaraado maxaa la dhahaa insulintii laga soo daynayo cellska waxaa waxyeelo kasoo gaaraysaa
jirka kale celleska kale inay gaari weyso oxygenkii ama qofkii energy uu halkaa ka heli waayo oo uu ku dhacdo waxa la yiraahdo fasting state oo iskaga jira waqti walbo qof gaajeysan uu noqdo. sidoo kale haddii insulintu sida caadiinka insulintu levelkeeda ama glucose aan iraahde glucose levelkeeda hadduu uu ka yaraa uu ka badnaado mar walba 200 oo milligram per deciliter hadduu ka badnaado after 2 hours qofka meals markuu cuno ama raashin uu cuno waxaa la yiraahdaa ama 125 milligram fasting state qofka markuu yahay haday noqoto qofkaasi waxa uu qabaa waxa la yiraahdo hyperglycemia. Hyper means more, money means boli ama money, glycemia waa galaay kaligeedna waxa waaye glucose, semia means in blood waa qofkaas markii dhiigiisa waxa ku jirto wax la yiraahdo glucose. Mana loo baahno qofka bani'aadamka dhiigiisa inay maadada glucose ka soo muuqato, haday ka soo muuqato qofkaas wuxuu noqonaa diabetic. waxaan rajeynayaa wax badan ka fahamteen insha Allah ta'ala, wax badan waa isla shirgaray doonaa. Please ha iloobin channelka inaad like iyo subscribe inoo dhahdo.